shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu ku socdo wada qardajeexa isla markaana xaaladda dalka iminka ay ku sii socoto wada halis ah waa sidoo hadalka u dhigay shariif xasan sheekh aadan ayaa dalka muddo ku dhow 60 maalmood uusan lahayn ra'iisul wasaare xilli weli ay shaqaynayaan baarlamaanka iyo madaxtooyada waxaa sidoo kale shariif xasan baadil ku tilmaamay dhammaan tillaabooyinkii ay qaaday xukuumadda ku meel gaarka ah uu sheegay in ay baalmartay sharciga uuna ku tumanayo madaxweynaha Soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa xusay in nasiib daro weyn ay tahay in madaxweynihii laga rabay inuu dhowro dastuurka oo isaga ku tumanayo waxa ugu baaqay madaxweyne farmaajo inuu magacaabo ra'iisul wasaare isla markaana uu ka shaqeeyo doorashooyinka la filayo inay dhacaan dabayaaqada sanadan aan ku guda jirno 2022 iyo 2021 shariif xasan sheekh aadan ayaa laba jeer hore waxa uu soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaana sidoo kale uu soo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa xilligii muddaxileedkiisu uu dhamaaday ee koonfur galbeed waxa laf dhuun gashay ku noqday madaxtooyada Soomaaliya waxaana ku adkaatay in mar labaad uu soo sharaxo xilka madaxweynaha koonfur galbeed xilli madaxweyne shariif xasan xilligaasi uu sheegay inuu yahay musharax u taagan inuu qabto mar labaad xilka madaxweynaha koonfur galbeed xilligaasi oo kaambeedka ay kula jireen madaxweynayaal u sharaxnaa xilligaasi oo ugu horeeyay shariif xasan مختار روبو علي أبو منصور إمينك قعنت دولة كو جرا يو عبد العزيز حسن محمد لفت جرين أو أحمد حوينها إمينك ترى هيا كونفور قلبات شريف حسن أيام مركي تنبشجي إنه سجد تنزل إسلام مركانا أو كبحي إنه ترتمو مرلبات حلك مدحوينها دولة قبلات كونفور قلبات سوماليا إسقونه كدوات سنة دلك كم مقنع أيا دوا وحديب ووصل عقي مقالة مقدشو